Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan daawadayaal dhegeystayaal magacaygu waa cali caamir xasan waxaan halkan jeclahay inaan kugu soo gudbiyo waxyaabo la xiriiro cilmiga caafimaadka khaasatan waxyaabo la xiriiro food supplement ama waxyaabaha la xiriiro cunooyinka iyo qaabka bini'aadamku u cunaan cunooyinka sida waxyaabaha la xiriiro cunno yarida iyo waxyaabaha keena cunno yarida waxaan jeclahay inaan soo kookoobo insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa insha allah inaad ka faa'iideysan doontaan dhammaantiin mar kale kusoo dhawaada baro caafimaad iyo shaybaar magacayga waa doctor cali caamir xasan soo dhawaada waxaan gudageli doonaa waa maxay eating disorders cudurada la yiraahdo ama waa maxay waxa la yiraahdo anorexia ama waxyaabaha la xiriiro cunno xumida cunno yarida dabcan haddaan waxyar marka hore laba noot ama qodobo yar aan ka sheego intaan waxyaabaha keena u gelin cunno xumadu waa horta xaalad nafsiyadeed oo kala duwan oo sababa in cunno iyo caafimaad qab la-aan ay bilaabato in cunno yari ay bilaabato qofka ku bilaabato halkaasoo ka imaanayso inuu weligiis ahaado qof aad u liito ama cunnada ku yar qaadashadeeda waxay ku bilaaban kartaa kuwaali wax cunow marka hore qofka inuu marka hore ku waaliyo wax cunow ayaa keeni karto in cunno xumidu ay halkaas ka bilaabato ama anorexia waxa la yiraahdo ama loss of appetite sidoo kale waxay ku bilaaban kartaa culayska jirka qofka culayskiisa jirkana way ku xiran tahay sidoo kale waxay ku bilaaban kartaa markay bilow tahay qaabka jirka uu samaysan yahay qofka hadduu qofka markuu dhalanayo ahaa qof buurnaay waa la xiriirtaa waxyaabaha anorexia keena ama waxyaabaha loss of appetite keena hadday tahay qaabka macnaha qof caata ah boo tabar yari u dhasha hadduu yahay hadday tahay dabcan waxyaabo badan ayaa keeni kara waxyaabaha la yidhaha anorexia ama loss of appetite xaaladaha ama kaysaska daran ee cunno xumida cilladaha cunno xumida waxay ku sababi karaan cawaaqib xumo qofka caafimaadkiisa waxayna taasi ku imaan kartaa dhimasho haddii aan la daaweyn qofka waxay ku keeni kartaa anorexia ama loss of appetite ama cunno yarida waxa loo yaqaano eating disorderska qofka waxay u keeni kartaa dhimasho haddii aan la daaweyn if untreated fatal ayay dhahaan ay keeni kartaa marka waxyaabaha la xiriira cunno xumida ama cunno yarida waa wax yacni kasoo bilaaban karo marka hore qofka qaab dhismeedka jirkiisa dabcan iyo wax uu qofka ku waalnaa marka uu yaraay in cunnada uu aada ugu liitay haddaba marka halkaas notskeerka ku saabsanayay cunno xumida ama eating disorderska ama waxa loo yaqaano anorexia waxa ay notskeeda haddaan halkaa u gudubno maxaa sababa marka dabcan intaan ogahay iyo waxyaabihii aan kaashaday iyo baaritaanadii aan sameeyey waxyaabaha sababo waxaa ka mid ah in khubaro badan ay aaminsan yihiin cilladaha cunnada inay sababi karaan arrimaha kala duwan midkood waxaa ka mid ah hiddo-sidaha ama daraasado la sameeyey xagga mataanaha la xiriiray koriinshaha ku lug leh mataanaha oo lagu kala tegay dhalashadooda khaasatan markay dhasheen qoysaska qaar ee korsadaan oo kale cunug ka mid a laba mataano ah ayaa cunug ka mid a qoys loo dhiibayaa mid kalena wuu korinayaa familkiisa ku baaqi noqonaya mid kalena qoys kale ayaa korinaya waxay sheegeen daraasadahaas marka in maxaa la dhahaa qaar ka mid a dhibaatooyinka cunnada ay noqon karaan kuwa la iska dhaxlo cunugii tusaale ahaan cilmi baarisa waxay sheegaysaa in guud ahaan dhammaan caruurta mataanadaha mid ka mid a cunno xumo haddii uu ku dhaco midka kalena 70% ay u dhowdahay in celcelis ahaan 70% ay u dhowdahay in cunugu uu cunno xumo qaadi karo cunugii kale waayo yacni xagga koriinshaha iyo xagga mataanaha oo la kala fogeeyey ayaa u wacan waayo isku hal hidde-sida ayay wateen ama one genetic eating disorder ayaa ku wada dhacaya labadooda soo marka hooye ku baraarugsanow laba caruur mataanaha hadday kuu joogto ama aabba ku baraarugsanow caruurta oo la kala fogeeyo mataanaha waxaa ka imaanayso waxyaabaha la yiraahdo eating disorders ama anorexia adikana waa aragtaan cunug ka mid a caruurta ayaa meel kale ku noolaanaya familka ka fogaanaya marka midkii kale ayaa waxaa noqonaya mid aada uga buuran oo uga jir dhisan oo uga qurux badan wax kale maaha waxaa ku dhaca wax anorexia la yiraahdo oo maxaa la dhahaa asigii ay u badnaatay 70% la sheegay dhankiisa ayuu hiddisadihii u raacay dabcan sidaasna waxaa sheegaya daraasaad badan oo ku yaalo qaaradda America ee laga sameeyey ayaa cadeynaya in caruurta yacni genetic ahaan oo mataanaha ah ay saameyn ku yeelan karto waxa la yiraahdo anorexia maxaa sababa marka hal iyo laba haddana sii tirino
anorexia ama eating disorderska cudurkan la yiraahdo cunto yaraan ayuu ka bilowdaa. Cudurka anorexia nervosa la yiraahdo ama anorexia loss of appetite waxaa laga yaabaa inuu yahay cilada ugu caansan ee dunida inuu yahay ayay u badan tahay amaba laga yaabaabo. Cudurro kale oo ka caansan way jiraan laakiin waxuu ka mid yahay cudurrada ugu caansan dunida. Waxay guud ahaan bilaabataa xilliga ilmanimada ama xilliga qaangaarka, waxayna u tahay mid saameyn ku yeelanayso dumarka in ka badan ragga. Inta ay ragga saameyn ku yeelato in ka badan ayay dumarku saameyn ku yeelataa. Markii ay soo bilaabato dabcan cudurkan anorexia la yiraahdo ama cunto yarida ama eating disorderska markuu bilaabanayo inta dumarka ay ragga ku yeelato ka badan ayay ku yeelataa dumarka. Waxayna soo bilaabataa xilliga adolescence-ka ama xilliga majuurka qaangaarnimada ama caruurnimada wixii ka dambeeyo. Dadka qaba cudurka anorexia marka guud ahaan waxay isu arkaan inay yihiin dad miisaankoodu aad u badan yahay. Waxyaabaha caanka ee lagu garanayo waaye cudurka anorexia dadka qaba badankooda ama guud ahaan waxay isku arkaan inay yihiin dad miisaankoodu aad u badan yahay. Xitaa haddii ay si khatar ah u miisaan yar yihiin waxay ku leeyihiin anuu miisaankii waa badan yahay, miisaan fiican aan leeyahay. Waxay iska dhaadhicinayaan inay miisaankoodu aad u badan yahay. Bilowgiina waa tan kugu soo sheegay cudur la xiriiro nafsiyan inuu yahay cudurkan. Qofka nafsiyan marka wuxuu iska dhaadhicinayaa inuu yahay qof miisaankiisu aad u badan yahay. Waxay u muuqdaan dadka cudurkaas qaba inay si joogto ah ula socdaan culeyskooda. Ayaga waxay isku arkaan culeyska jirkooda ama miisaankooda inay si joogto ah ula socdaan. Waxayna ka fogaadaan cunista cuntooyinka qaarkood. Noocyada cuntooyinka qaar way ka fogaanayaan oo si ba'an u xakameynaya kaloriintooda. Kaloriinta jirkooda ku jirto oo sameyn lahayd waxyaabaha qaar oo miisaanka ama weight-ka ka qayb qaadan lahayd waxay aad u xakameynayaan. Dadka markaas waxay ka fogaanayaan cunooyinka qaar ay cunaan. Cunooyinka qaar maadaama ay ka fogaadeen marka halka waxaa ka dhacaysa dabcan waa dareemi kartaa waxaa ka bilaabanaysa in wax badan oo kaloriintii jirkii cunooyinka qaar oo ay ka heli lahaayeen ee meesha ka yaraato. Sidoo kale calaamadaha guud ama caamka anorexia waxaa ka mid ah qofku inuu aad u miisaan yar yahay marka loo eego dadka da'da iyo dhererka la midka ah. Asiga marka loo eego dadka da'da iyo dhererka kala mid ah inuu ka miisaan yar yahay qaabab cunno oo xadidan awgeed. Marka uu ka miisaan yar yahay qaabka cunnada uu cunayo oo xadidan awgeed aad ayuu uga miisaan yar yahay dadka kale asaagiisa marka loo eego. Waa calaamadaha ugu horeeya ee lagu garto cudurka anorexia. Sidoo kale qofkan cabsi daran oo dhanka miisaanka ah ayuu qabaa. Sida weliba inuu miisaankiisa kordho ayuu qabaa iyo dabeecad joogto ah oo ah ka fogaansho inuu miisaankiisa kordho. Miisaankiisa inuu kordho ayuu ka fogaanayaa. Dabeecad ayuu u leeyahay in miisaankiisu aad u badan yahay isu maleeyaa. Mental ahaan wuxuu iska dhaadhiciyay in miisaankiisu badan yahay. Marka wuxuu mar walba ka fogaanayaa dabeecadna ka dhiganayaa inuu miisaankiisa kordho. Inkastoo miisaankiisu hooseeyo haddana asigoo miisaankiisu hooseeyo wuxuu iska dhaadhicinayaa in miisaankiisu aad u badan yahay. Sidoo kale calaamadaha lagu garto dabcan waxaa ka mid ah waana midda ugu dambeysa calaamadaha raacdo aan kala joogsi lahayn. Qofkii oo raacdo kugu jiro kala joogsi lahayn oo ah maxaa raacdo ugu hayo oo ku jira caatonimo iyo rabitaan la'aan inuu ilaaliyo caafimaad qabka miisaankiisa. Wuxuu raacdo ugu jiraa oo weliba mid aan kala joogsi lahayn ah inuu qofkaas caato yahay. Macnaha jirkiisa ayaa raacdo ugu jiro inuu sii caatoobayo oo jirkiisa ayaa mar walba sii caatoobayo. Iyo qodobkan kale oo ah inuusan wax rabitaana willingness iska yahay oo wax rabitaana uusan u haynin inuu ilaaliyo caafimaad qabka jirkiisa. Inahaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha la xiriiro cudurka la yiraahdo eating disorders ama cudurka loo yaqaano anorexia ama loss of appetite mid doonto ugu yar. Intaas ayaan jeclahay inaan kusoo koobo. Inkastoo intaas ka baaxad weyn haddana waan iska soo gaagaabiyay. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidaysateen kuna dhaqmi doontaan aadna fahamteen familkiinana ay caruurtiinana aad qodobadan aan soo sheegay u bandhigi doontaan oo aad ka fiirin doontaan. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Cali Caamir Xasan. Kusoo dhawaada mar kale waxyaabo kasta oo la xiriira cilmiga caafimaadka iyo shaybaarka. Mahadsanidin.